kulan wanaagsan mar kale daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabe wasaaradda amniga gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay uga digtay ganacsatada garoomada kubadda cagta inay qaataan awaamir dhawaan ay soo saareen ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay ku mamnuucayaan in garoomahaasi lagu ciyaaro ciyaarta kubadda cagta. wariyaheenna Maxamed Xasan Qays ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray. afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Ibraahim Xildhibaan oo maanta shujiraad ugu qabtay warbaahinta magaalada caasimadda Muqdisho ayaa kaga hadlay warar maalmihii dambe ay tabinayeen warbaahinta kaas oo ay sheegaya amaro Al-Shabaab ay ku soo rogeen garoomada salaxa ee lagu ciyaaro kubadda. amarkaasi oo sheegayay in ganacsatada garoomada yar ee ku yaala magaalada Muqdisho aysan u ogolaan garoomadooda inay ku ciyaaraan dadka. afayeen Cabdicasiis Xildhibaan waxa uu sheegay in magaalada Muqdisho aysan ka talin Al-Shabaab sidaas daraadeedna aysan macquul ahayn in amarkooda uu ka shaqeeyo. waxa uu ganacsatada iska leh garoomada yaryar ee lagu ciyaaro kubadda uga digay inay qaataan wararka Al-Shabaab cidii ay ku cadaato ayuu sheegay in la xisaabtami doono talaabo sharci ahna laga qaadi doono. baaritaanna aan sameynay waxaan ku ogaanay dadaal ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed kuna sameeyeen waxa loo yaqaano yellow page ay ku ururiyeen magacyada shirkadaha iyo goobaha ganacsiga sida gaarka ah loo leeyahay taas oo ay ka faa'iideysteen argagixisada maleeshiyada iyo burcadda tahdiidka cagajugleynta iyo hanjabaadaha u jeedinaya ganacsatada Soomaaliyeed. sidaas darteed waxaan digniin u jeedinaynaa shirkadaha iyo goobaha ganacsiga sida gaarka ah loo leeyahay inay u hoggaansamaan cagajugleynta ay u soo dirayaan burcadda aan kor ku soo xusnay. waxaa socota baaritaano cid kasta oo lagu helo lacag telefoon ay ugu dirtay shirkad xawaaladeed ay u marsiisay account banki ay ugu shubtay ama si toos ah ay ugu geysay waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. wasaaradda amniga gudaha waxay digniin u jeedinaysaa milkiilayaasha garoomada ciyaaraha yaryar ee loo yaqaan salaxa ee ku yaala magaalada Muqdisho inay u hoggaansamaan wararkii toddobaadyadii la soo dhaafay ay shacbiga isla dhexmarayeen laamaha warbaahinta ee madaxa bannaana ay baahinayeen. ma ahan waxaan aqbali karno iyadoo ammaanka magaalada Muqdisho ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya in haddana ganacsatada u hoggaansamaan hanjabaadaha ay u soo dirayaan maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana ay baahinayaan laamaha ama warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. shaki kuma jiro wararka ay baahinayeen laamaha madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Muqdisho ujeedada laga leeyahay in ay tahay inay bixiyaan lacag baad ah ganacsatadu mid ha ogaadeen iyo warbaahinta madaxa bannaan. Soomaaliya waxaa ka jirta dowlad federaal cid kasta oo u hoggaansanta inay xirto ama canshuur ka bixiso waxaa la horkeeni doonaa sharciga. dhawaan ay ahayd markii la sheegay in ay soo baxeen warar sheegaya in amar ka soo baxay Al-Shabaab lagu mamnuucay garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho. Maxamed Xasan Qays RTN TV magaalada Muqdisho.